wararka caalamka qodobada ugu muhiimsan maanta bariga dhexe xiisad sii kordhaysa xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas weli waa mid kulul iyadoo duqeymo iyo iskorimaadyo socdaan. Houthi movement ayaa mar kale weerar ku qaaday maraakiib maraysa badda cas. Iiraan waxay sii xoojisay hadallo iyo dhaqdhaqaaqyo militari taasoo cabsi gelisay gobolka. Ukraine iyo Russia dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Russia ayaa galay marxalad cusub oo weeraro drones ah. Labada dhinac waxay sheeganayaan guulo balse khasaaraha rayidka ayaa kordhaya. Siyaasadda Mareykanka United States waxaa si xoog leh uga socda ololaha doorashada arrimaha ugu waaweyn dhaqaalaha amniga iyo siyaasadda dibadda. Afrika geeska Afrika Soomaaliya howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab ayaa sii socda. Suudaan dagaalka gudaha weli xal rasmi ah ma gaarin. Itoobiya xiisado siyaasadeed iyo amni ayaa mararka qaar soo baxa. Dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda suuqyada caalamka ayaa isbedelaya gaar ahaan shidaalka iyo Bitcoin-ka. Tartanka AI-ga caqliga macmalka ayaa sii xoogeysanaya. Shirkado waaweyn ayaana ku tartamaya horumar degdeg ah. Caalamku wuxuu wajahayaa 3 khatarood oo waaweyn: dagaalo sii fidaya Middle East iyo Ukraine, dhaqaale aan deganayn, technology si xawli ah isku bedelaya. Caalamka maanta meel kasta dagaal, cabsi iyo qalalaase ayaa ka socda, laakiin su'aasha ugu weyn waa ayaa ka faa'iideysta. Bariga dhexe waa holac. Ukraine weli dagaal ayay ku jirtaa. Afrikana xal la'aan ayaa hareysay. Arrimahan oo dhan isku mid maaha, laakiin hal shay ayaa mideeya. Caalamku wuxuu galay marxalad cusub oo halis ah. Qaybta koowaad bariga dhexe. Israa'iil iyo Xamaas weli dagaal ayay ku jiraan, duqeymo joogto ah, dhimasho rayid. Xaaladdu waa mid ka sii daraysa. Dhanka kale Houthi movement waxay weerarayaan maraakiibta badda cas taasoo khatar ku ah ganacsiga caalamka. Iiraan waxay ciyaaraysaa ciyaar khatar ah. Qaybta labaad Ukraine iyo Russia. Dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Russia weli ma istaagin. Drones cusub weerar lama filaan ah. Labada dhinac waxay sheeganayaan guul, laakiin xaqiiqadu waa dad rayid ah ayaa bixinaya qiimaha. Qaybta saddexaad Afrika gaar ahaan Soomaaliya howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab ayaa socda. Suudaan dagaal gudaha oo weli socda. Itoobiya xiisado marba marka ka dambeysa soo baxaya. Daawade qaarad dhan weli waxay raadinaysaa xasilooni. Qaybta afraad dhaqaalaha iyo AI-ga. Inta dagaaladu socdaan, dhaqaale ayaa isbedelaya. Shidaal kor u kaca, Bitcoin isbedela, iyo AI oo si xawli ah u kordhaya. Su'aashu waa ma tiknoolajiyadda ayaa badbaadin doonta mise waxay sii kordhin doontaa khatarta? Caalamka maanta ma aha mid degan, laakiin fahamka waxa socda waa awood. Haddii aad rabto runta qarsoon iyo falanqeyn qoto dheer, subscribe saar channel-ka. waxay qoraan in uunan ahayn qof fariiq ku shaqeeya, koox ku shaqeeya. team waxay qoraan inuu yahay qof iscajabiyey, asaa isku mashquulsan, obsess isku ah. waxay qoraan qof dunida u arkaya waxba la'aan, ana kullu shay u arkaya. bal qaarkood maalin dhowta wuxuu soo sawiray isagoo Nabi Ciise ceeb ka dhacday soo dhigay. wuxuu isku arkay inuu yahay badbaadiye, mukhallis. walidaalika saqaafada masiixiyiinta waxaa ku jira Nabi Ciise waxa u yaqaanaan al-mukhallis. annagu Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan u naqaanaa munkidku wax weeyaan badbaadsho bashar. kani waa kaa soo saarid dhibaato. mukhallisku dhibaato kaa soo saaraya. munkidku dhibaatada intay kugu dhicin buu ku leeyahay war dhibaatadan ka leexo. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay bashiiran wa nadhiiran wa daaciyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. waxa weeyaan iftiin oo ku siinaya wuxuu leeyahay halkaa oo fasaad baa yaala ka weeco leexo halkaa waa mari kartaa halkaa kale dariiqo ku tayaa, laakiin kuma mukhallis ma ka soo saaray dhibaatada. يكون مخلص بوركان. ولذلك فرق أدحى نبي محمد يا نبي عيسى حتى في القراءات الدينية ومحب نبي محمد وخلاص إنساني، لكن نبي عيسى وحبركان خلاص فردي قفكم بالبادية سيد داوين عمل وداوين مشترك جرن ولا داوين وأبرو الأكمه برجع يستقبل حسكو أركي إنه يبقى مخلص سوقات يا نبي عيسى والبنات بالبادية كنيسة دي بعضات
كاثوليكي كاثوليك waxaan ليو نينكي markii dambe uu ka soo laabo ka saarana shalayto xataa kan sidoo caayay waxa ma loo socdo waxa u jawaabay badii boobkii Vaticanka halka uu joogay in bismillah oo waliba nin Mareykan Leo markii ugu horeysay dabcan wuxuu joogay Jazair Algeria booqasho waxa la isbarbar dhigay laba arrin cajiiba wallahi waan ka xumahay waxa la isbarbar dhigay saxaafadda reer galbeedku ninkaas baadariga xukuma kaniisadda iyo wadaadkeeni tujinaya xarabka wadaadka kaniisadda wuxuu yiri bini aadanka wadanada adduunka laga badbaadiyo Trump keen xukumayna wuxuu yiri Trump adduunka badbaadinaya labada la soo qaatay boono shaasic mid iska dhalinyaro siyaasadda ku mashquulsan aqoon aqoonida aqoon baa yiri labada ayaa ku duwatukanaa harga تعليق قانون قرار عقودي وعنقود وتكلنا سويس هذا صراحة تكشات دائما توحك لها جزاك الله شكرا شيخ مركا waxaan ka sheekeynay hogaanka Mareykanka say waxooga qoreen oo eegeen oo ifiyeen saxaafadda reer galbeedka isla saxaafadda reer galbeedka sidee u eegeen hogaanka Iran okay Trump ma xaajay Iran buu jeedaa horta dalka Iran waxay leeyihiin waa dal 40 sano ku jiray wax ka badan xuna qabatayn laakiin wax ka tabayay mugta laakiin beeradeen wuxuu la qabsaday xuna qabataynta تعود عليها اي dhaqaale wuxuu sameeyay leeyahay dhaqaalaha xuna qabataynta wuxuu sameystay xiriirka xuna qabataynta ولذلك markuu imika Trump yiri badda waan ka xidhanaa marda mun baraarugaya waxa xidhay badda badan way yimaadeen dhulka way yimaadeen Kazakhstan iyo wadannada Ruushka ka xoroobay ku xidhan yahay waxa soo qaada maaratay tareeno iyo isbaawradan jiidka soo gura laabta ko boqolkiiba 58 badda way yimaadeen isaga badda waxa ku dhoofsadaa saas gaaska laakiin waxa badda ka soo galaya dhulka soo maraa arinta labaad waxay yiraahdeen waxay ku takhasuseen hogaanada wadanka xukuma laba shay ani ma ka shaqeynaa juqraafiga siyaasiga ee bariga dhexe iyo waxay ku takhasuseen askariga siyaasiga marka waxay u badileen mashaariic ولذلك waxay ku tala galeen dagaal dheer la gali doonaan marka imika bariga wuxuu galay dagaal dhado ku dhifo dhaaf iyaguna waxay ku tala galeen dagaal istizaaf dhiig furad dheer soo استراتيجية ولذلك صحافة الرجال بيتكم waxay leedahay waa dad mutashaddidiin oo adag oo ideolojiyiin laakiin siyaasiyiin